sheekh albeledka gobolka Gabiley Ciise Sheekh Maxamed Warsame oo kamid ah saraakiisha xisbiga wadani ee heer qaran ayaa ka hadlay dacwadda xisbiga wadani u gudbiyay komishanka doorashooyinka ee la xiriira codadka Gabiley ka soo baxay waxaanu sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax lagu shubtay isla markaasina ay ku qanacsan yihiin codadka Gabiley ka soo baxay aniga waa sheekh albeledkii Gabiley ahna ahaa waayeelka ummatalay gobolka Gabiley xisbiga wadani od marxaati ka tihiin in badan aniga iyo xukuumaddu anoo gacmaha isla jirnaan iyo biliisku in badan ay dadku ka arkeen shaashadaha haddana wixii qalooc ah ama xabtin ah ee gobolkayaga ku soo leexanaya in aan ka hadlo wixii xisbigayaga qalooc ah ama ay tabanayaan ama ay jirtona in cidda ay khusaysaa waa komishanka iyo shicib weynaha Somaliland guud ahaan marka ugu horeysa waxa ka hadlaya waxa weeyaan hadallada soo baxay waqtiyadan dambe ee ahaa in lagu shubtay Gabiley iyo goobo kalaba nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo dimuqraadiyadda ayaynu ku soo calaamaal qofka fidma kiciya kaanama qatala naasa jamiican billahi wuxuu la mid yahay qof laayay dadkoo dhan fidma la kiciya maaha صدوق waliba walaalayaal wuxuu lahaa tira cayiman oo in lagu footeeyahay haddii tiradii sidii loogu kala footeeyay sida matalan warqadda halkaa in ka cad intii ay ahayd intii codaysay sidii loogu kala codeeyay iyo intii soo hadhay matalan waa tuulad meesha la yiraahdo wadada godka 108 kaad baa lagu codayn oo soo hadhay haddii la leeyahay taasaa lagu shubtay waa macna صدوقات اللي سوحيات لحد قول يا فريت لحد قول فريت طبعا كان ذي لقى محكسية سلا جهرينا ووح عن قبرين إن عبشضو حسب جاي قبر إلا قلعيه وعدال له قلعيه وهص وصايبه أيام هرت أسوجين جودي كوميشن قال كيد ورشين حلالنا وافتين حلال وحلو كالقاعدة لينا إن ولا ليال أين لقوة النولادون بدقرية الله وضع إلى لينا ونفتين إيا نولشين إيا خددين إيا كتشت سيستم كأي دور الشغل لهذا حي حن مقليين إن لصوت بعضي أو لقو شبتي runtii anu maan arag intii aan hormeedka ku jiray intii aan goobaha joognay khaasatan imika intii la taliyay 5,200 cod ee lagu footay haddii taa ay timaado oo la leeyahay waxba waa lagu shubtaa laakiin yaan colaad iyo xumaan dadka loo dhex dhigin هو في المرأة كعينا إلى طهي إقامة إن بالجليدة عن مراه روض النورين ليه وايو تترضى الله يسكوها يسكو وحوح مانكرا صندوقة وحي قديس انترنال وحقق نقيم كوميشن لكن وحي الشعب هان دولتهان ددهان annaga soo galayno xisbigiya hadii la leeyahay waa ku shubtay means يعني والله سعد مصاب
وجبنا بكرة مرت هرب موسى دي لا قبيل هين أي المرت هرب كرع عن الوطن معناه واحد نقول صار عندي وكيل كوبا حين أيام كله شيء سي هو قشط هاي الحزب يكون مليان والله يا واحد لنا عطهم قبضا وضني وقصر بحي مقالد يقول هيك ممكن يقول اللي يواني والله يا هذا حاسوك شيء دنيا إلى إنه نضبط عالم مع الله إلى إنه نضبط وضع النورانه قفكي لهي وقرينا وإمام قف كان قال له قرينا إمام معي والله يا أنا قريدا هلا الصور ولا بهلا يناليه الله أوصم إياه ولا إياك قاعد يوم حبه وصابير لأن الناس يريد كم قريب واحد بدن وحسوش الدنيا إن عاد هصل أبوه إلى أنا كلية ما تصدقكم بعديين أنا كلية كل الدجال إبليس أقل وقت اللي سوق صار وقوم بعدنا رن عدنا والله يحلى نعيم وقصة صدوق كستا وحي لغا تبني لنا حلا لغا قلعيو وحي أن ماشي كجرينا ولا ليان وحي سو جيدينيا ددك إنان لو ودا دغيسن ee xaqiiqda la taabto wasalaatu waxaan baaqan nabadda ugu soo jeedinaa dhammaan Soomaaliya colaadina way la soo daashatay colaadigu intii ka hadhayba maanta nool oo tarantaynta tiyo hargeysa 200 oo kun ka yar tahay baa ayaa lagu soo noqday wadanka maantana more than 3 million 2 million way tahay intii dambe la tabay colaada dadka inta ka soo reebtay colaad yalla horseedi walaal baaq nabadeed qof ku dhinta iyo qof inaga baxa iyo qof ku dhaawacna midna ma istaasho maanta sida ay muqdisho tahay in la inoo warano inaga ilaaliya nabadgelyadana dhammaanteen qof yar iyo qof weyn bixin ba ka saaran